Puntland iyo Galmudug taariikh ahaan waa laba maamul oo daris ah inkastoo ay hore u soo dhaxmareen colaado siyaasadaysan gudahooda oo dhimasho iyo dhaawacba sababay haddana markan waxa ay ku wajahan yihiin sidii ay u midayn lahaayeen awoodooda ciidan kuna wajahan deegaano ku yaala koonfurta gobolka Mudug oo la rubaysan yahay inay ku xoogaysanayaan kooxo ka tirsan al-shabaab kana soo horjeeda amniga iyo horumarka doonaya inay khalkhal geliyaan amniga labada maamulba xogaha xagga amniga oo la hayay 3 bilood ee weydaartay waxa ay qirayeen in ay al-shabaab qorsheynayaan in koonfurta Mudug uga talaamaan dhanka Puntland qorshahooda koobaadna ahaa inay isku fidiyaan deegaanada isku xiro Hoobiyo iyo Gaalkacyo waana weeraradii ugu cuslaa sababaha ay ugu qaadeen magaalada Bacadweyne oo ay kula dagaalameen ciidanka dadka deegaanka ah labadii sano ee la soo dhaafayna waxa ay dadka deegaankaasi ku jireen isdifaacid xoogan December sanadkii 2020 ilaa hadda kooxdan ka soo horjeeda amniga iyo horumarka Soomaaliya waxa ay duulaankeeda Bacadweyne ka soo qaadaysay deegaanka Camaara waxa ay ku haminaysay qabsashada Shabeellow iyo Bacadweyne oo ay kala kulantay jabkii ugu cuslaa ee u geystaan dadka deegaanka oo is-abaabulay labada deegaan waxa ay muhiim u yihiin isu socodka magaalooyinka Hoobiyo iyo Gaalkacyo sidaas oo kale waa buucda isku xirta deegaano muhiim ah waxay al-shabaab doonayaan inay qabsadaan deegaanada Wisil iyo Baxda oo koonfur uga beegan Gaalkacyo una jira masaafo ka badan 230 kilomitir waa deegaano muhiim oo isku xirka gobolada dhexe ee Soomaaliya waana marina ay al-shabaab u aragto inay tahay goobo muhiim ah isfidinta kooxdan xag jirka ee dhulka dhaca bartamaha koonfurta Soomaaliya waxa ay soo dadajisay in mar kale dib boorka looga jafo iskaashiga maamul ee Puntland iyo Galmudug waxayna ka dhigan tahay labada maamulba hadda ay dareemeen culayska kooxahan iyo sidii ay tahay in wada jir ay ugu abaabulaan in laga sifeeyo goobahaas 6 bilood ee la soo dhaafay xogaha sirdoon ee la helayay waxay cadeynayeen in al-shabaab doonayso inay kordhiso dagaalada ay uga soo horjeedaan amniga iyo horumarka labada maamul waxayna Galmudug u arkaysaa marin ay uga gudbi karto xagga Gaalkacyo ila amni waxay cadeynayaan in kooxdu awood aysan u lahayn hadda ay isugu dayaan weerar ay ku qabsadaan Gaalkacyo balse culays badan ay ku hayaan bulshada deegaanada koonfurta gobolka Mudug Galmudug waxa ay baahi weyn hadda u qabtaa sidii deegaanadaas ay uga xoreyn lahayd kooxdan waxaana deegaanka muhiimka ah ee Bacadweyne la xaqiijiyay inuu galay gacanta kooxda al-shabaab ciidamadii deegaanka ayaa ka baxay halkaas muddooyinkii u dambeeyayna lagu urunay waxayna cududooda u wareejiyeen deegaano kale oo nabdoon kadib markii ay waayeen taageeradii ay uga baahnaayeen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida gaar ahaan xoogga amniga ee dawladda federaalka iyo Galmudug iskaashigan cusub waxa uu soo dadajinayaa qaadida howlgal wada jira oo lagu xoreynayo deegaanada ay qabsatay al-shabaab waxa sidoo kale garab socda isku dhexjirka isku milanka ah oo aan wajigiisa dhabta xog badan laga haynin xubno ka tirsan Galmudug ayaa ku kala qaybsan iskaashiga labada maamul qaarkood waxay ku doodayaan in Puntland la geli kan heshiis ciidan arintaasna waxa ay ku sababeynayaan xilli ay sheegaan inuu jiro dhul Galmudug leedahay oo ku jira gacanta Puntland laakiin taasi waxa loo arkaa inay tahay arin looga hor imaanayo iskaashigan cusub ee labada maamul khubarada amni waxa ay rumaysan in Puntland xilligan ay ku qasban tahay inay qayb ka noqoto howlgal ciidan oo ka dhaca koonfurta Mudug si loo yareeyo ama meeshaba looga saaro khataraha kooxdan xag jirka ah lagana hortago inay qabsadaan deegaanada isku xiro Hoobiyo iyo Gaalkacyo taasoo haddii ay qabsadaan ka dhignaan doonto qaadida dagaal u baahan malaayiin dollar iyo waliba sidoo kale hub culus taariikh ahaan in labada dhinac ee Mudug ay iskuna kaashadaan la dagaalanka kooxahan kama bilaabanaysa waqtigan balse dhammaadkii sanadkii 2006 ayay iska kaashadeen la dagaalankii maxaakiimta Muqdisho oo xilligaasi kaabiga ku haysay Gaalkacyo ayagoo ku sugnaa deegaanka Bandirale qorshahooduna ahaa inay la wareegaan Gaalkacyo